haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeed eheladii iyo faamilkii uu ka geeriyooday halgami Cabdullaahi Ciise Maxamuud kuwii muddadanba iskaga tacsiyeynayay qaybtii hal abuurada waxaan ku soo talagalay suugaantan soo socota taas oo aan uga jeedo inaan ducada iyo xuska taariikhda intaba uga qayb galno dhan kastaba waxaan erayadii ku bilaabay sidaan soo socota bismillaahi raxmaani raxiim halyeygii dadkiisoo cadiban caymi ugu toosay ciqaabkay shisheeyuhu badeen beesha ka carooday ummaddiisa curadkii u kacay een ciddina reeban sharduu ciirsigii libinta iyo noo cuskiyey guusha ciirsiga ciriiriga halgamihii u maray calanka Soomaali caqiibadaad noo gashaan kuugu cugannaaye carrana kuuma quureen inaan ku cisna mooyaane cabdullaahiyow tii allaan layska caabiyine xaqaan ciirin weeyo qabriga ciidda loo dhalaye mase haddii cirooliyo carruur qarankii kuu ciidmay oy calankii kuu gaabiyeen cududii Soomaali caloolsami dadkaagii hadduu caaqil kugu aasay calfatoo abaalkaa ma lubin sida caddaanka ahi godka carala'aan jiif jannada caadil kuu garay cashaday xumayd geesigaan waajib ka cabsoonin gumaystiyo cawaankiisu kuu ciilka ladi waayey ciidiyo halgamihii u kacay ciriqa Soomaali abwaankii sokeeyuhu calmaday cadowna eedeeyey shardi aan xornimadii cuslayd cadarka soo gaaray caynka hanadkii aan furininoon dhiminin caynaanka galladii aad noo curisay baan kuu cutubinaaye cimri soo dhammaadaan bah jecel mawd ka celinayni ucub kuma dhigneen iil haddaan caalu helilayni cabdullaahiyow tii allaan layska caabiyini xaqaan ciirin weeyo qabriga ciidda loo dhalaye marse haddii cirooliyo carruur qarankii kuu ciidmay oy calanka kuu gaabiyeen cududii Soomaali caloolsami dadkaagii hadduu caaqil kugu aasay ciribtii abaalkaa ma lumin sida caddaanka ahe godka carala'aan jiif jannada caadil kuu garaye cibradiyo waxgaradkii ilaah uu caqliga siiyey caalimkan waqiis cayn hortaal keliya ciilaajin oo u carbanaa camal falkeed cimilo soo aadan xilkii loo cayimay daacaddan cirif ka weydaaran cad addoonsi iyo aaminkan sharafta cood dhaafsan sadceebeed indheergaradkii aan lagu cambaaraynin gobannimada caankaa shardaan cudud ku soo hoynay cabashiyo halgamahaan dhaliil caajis lagu sheegin samihii aad nagu caawisaan naga cilaalmayne wadkuba kuma casuumeen haddaan caalu helilayne cabdullaahiyow tii allaan layska caabiyine xaqaan ciirin weeyo qabriga ciidda loo dhalaye marse haddii cirooliyo carruur lagu cisaynayo oy calankii kuu gaabiyeen cududda Soomaali caloolsami dadkaagii hadduu caaqil kugu aasay calfatoo abaalkaa ma lumin sida caddaanka ahe godka carala'aan jiif jannada caadil kuu garaye caadadiyo magaceenna kii caalamka u naadshay cadrad timaha loo dabiyo awr dhigale caan sheegtay shir cayiman aqoon-yahankii aan tala ka ceeriyoomin codkarkaan fagaaraha cabburin oon gar lagu ciilin dadaal uu ku cayshiyo wanaag ku cirbi mooyaane carrigiyo halgamahaan bulshada caasi ku hawoonin sir iyo caad nafurihii darteen col u gabraarayay
qofba camalkii uu subsadaa lagu caqeelaaye kafan kuguma coosneen haddaan geeri celin layne cabdullaahiyow tii allaan la iska caabiyine xaqaan ciirin weeyo qabriga ciidda loo dhalaye mar haddii cirooliyo carruur lagu cisaynaayo ooy calankii kuu gaabiyeen cududda soomaali caloolsami dadkaagii hadduu caaqil kugu aasay calfatoo abaalkaa ma lumin sida caddaankaahe godka cadhala'aan jiif jannada caadil kuu garaye caaqiba horseed baad ahayd caana badiyaahe cawiniyo garsoor baad ahayd aan cuqda lahayne ciiltiraha nabaddaad ahayd bela cufeeyaahe tiir culus ayaa naga dhintiyo curiyo taariikhe sidiise caadilkeen uu yidhee diintuna caddaysay ifkaba noolihii soo camira wuu ka caymadiye caam ahaan waxaa loo socdaa cuurkii aakhira ceerigan adduunyada hadday cidi ku waarayso carfoonow rasuulkii ayaa laga carrawsheene allahuma salli wasallim wabaarik calayh cabdullaahi ciisow qabriga ciidda loo dhalaye marse haddii cirooliyo carruur lagu cisaynaayo oy calankii kuu gaabiyeen cududda soomaali ciribtii abaalkaa ma lubin sida caddaankaahe godka cadhala'aan jiif jannada caadil kuu garaye dad badan baa dhinta waxaa la arkaa inuu ninkii uu soo gaari kara inuu yimaado laakiin sababta isugu yimid oo ugu weyn oo dadka ka muuqato waxay ahayd cabdullaahi inuu ahay nin waddanka u soo halgamay oo xorriyadda aan haysan raggii awaa'ilku u ahay inuu yahay taas kulligayna oo dhan ragga meesha fadhiya aniga waa naqaanaa waxayna ila tahay waxaa la yidhi nabiga ayaan janaaso la soo agmaray markaasuu wuxuu yidhi inuu ahlu khayr ahdo ilaahay janno wajabad baa waxaan inuu yidhi ahlu janno inuu yahay ninka dambana wuxuu ahaayey allah ninkan soo hebel ma aha wuxuu ahay waxay u xagga sheegeen markaasaa wajabad inay waajibtay naarta marka halkaan waxaan arkaynaa in dadkii dhammaayo imaanayay ama shalay ama tacsiir u imaanaya ama odayaashii inay cabdullaahi u ducaynayaan hadduu adduunka ka tegay oo wanaag ugu tegay inuu maaragtay wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul afain maata ou qutila inqalabtum calaa acqaabikum waman yanqalib محمد ورسول الله صادر هو أيضا قد خلت من قبله رسوله الجسن أي تجان وأيضا كان رسوليات أفإن مات عدود الدين وقتل الذين أما أودن فأما أولدنه إن قربتم بها بدون ميسان قال لماذا بدون قنيسان ومن ينقلب على عقبيه تلك الأم نقرة وقال لماذا شيء قصة الأمور وفرية ظهور لها شيء فكاسوا بسلوك روحه من كان يعبده لك يعبد محمد فإن محمد رحمن ومن كان يعبد الله لك إله يعبد فإن الله ولا جيسي ومثل تاريخ جيسي يوحي سورة الخالد في قلوبنا وفي تاريخ إن الله يقولون بين الله يدخل من أهل الدولة فكسر الصلاة dadku waa zamankan meydka in la raaco in loo duceeyo camalkii duwan oo camalka waalid mageeb ama beer u waqfa u yiraahdo ilaahu waalidkii oo markastaba sadaqada midda daahirka iyo midda baatinka bixiya oo waalidkiisa ninkaas mar la arko acmaashiisa waa loo koryeelaa adooga qabrigiisa waalidka kada waa ogtihiin in ilaahay uu ka ballamay waalidka iyo asaga inuu meel ka dhigo marka waxaan ka rajaynaynaa yarka ama gabdhaha uu ka tegay inay ogaadaan in waalidka uu sugaayo inuu ka rabo sadaqo iyo duco iyo camal wanaagsan inuu u suubiyo oo waalidkiisa mataqaanaa asagana wuxuu ku helayaa adoo ka gaarimaysa wuxuu ku helayaa sharaf iyo horukac iyo iimaan iyo cumri dheeri iyo taraadnimo iyo khayr buu helayaa mar alla markuu asaga bixiyo markii khayrka uu u tago meydka arwaaxda
ونور له يا واحد يا نور كان محاول وحال له المهي سبا صدقوا بحيي dadka kale oo meesha joogo way ku farxayaan leeyta hadda aan saasoo kale helin marka waxaan rajaynaynaa inuu ogaado taariikhdiisii yaa la xusaya marka nasiib baad ku leedahay haddii maanta mataqaanaa lagu tacsiyeynayo waddanka magaciisa iyo xurriyada magaceeda lagu tacsiyeynayo marka sidaas daraadeeda waxaa jirtay nabiyullaahi zakariya markii in wiil ma qabin ربي إني وهن العظم مني واشتعل نبي يعقوب أولادي يعني السيا بركة وحرمنا حريتي يا عبد الله وهرسالي إنك متقانا إنك صغيرتاي مسكح هذا الجلسو إنك متقانا أباها ماشي وكاها إلى الكون لأن النقطين معركتين منه العادي ما يغصهم تاريخ ذا إيو وحل أركان أديك متقانا في وحلين مركب وإنت إلهي كم هذه ساعة أنا كان إلهي حكومة ذا كتجد وكان تجد النبي يعقوب نبي زكريا هو يرثني ويرثني واجعل ربي فضيل أولاد السيكة ولا مية لكن وحى إلهي لقد طلب أولاد وناكسن دعاء قار كذا وحى كجرتا أفر شيء وحوي اللهم إني أقلا يعني يكون وبالا علي أنا قباس إيه نغضه غير كي نطقنا وناكم ومن امرأة الناقبان كان من قالي تصيبني إدو قيسو قبل آوان المشيب انت مدقني ما أنا انقارن بدي إدو قيسة ودقني ما دي صهر مريسة يعني كان من قالي وحان كان من قالي درس حن ومركض وناك أصو بسا قرية مركض حمان صو بسا نفاقية ومن جاري سوء إن عملت سوءا أفشاها وإن عملت خيرا كتمها مركا ويل وناكسن الله كعبه ما سمته هو ينتاسوي إن أدنى أسجى رد عيسان عبد الله عيسى يدا وقطع أسجى رفعت هذا يسوي إنه جاي يكبره أسجى رفعت هذا مرة يا ركول الدنيا تجولي بين الله يوفي دواقيا ركول الدنيا تجولي بين الله يوفي كيغا داوعان يجين دمينيا دقا مريدين كان دواقيا دون دوليا بين كيبيين الله يومين هنون دقيسا وانهو وركيبو دافيو بكان باتين كان دواقيا ودوليا كيبو بيديه الله يوفي وقميريا أبينك ودعو دعا مسيريا درت أيوفيا دواقيا مولدونيا